waxaan joogaa waa magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland berisha iyo 20 bisha hadii alla idmo waxaa deegaanada Puntland hadii alla idmo looga dareerayo waa doorashada golayaasha deegaanka oo ay ku tartamayaan urur gaaraya ilaa 8 urur meelahaas magaalada Boosaaso aan hadda joogaa magaalada Boosaaso ahayd waxaa ka socda diyaar garow ururada siyaasadda oo shacabkii kala xidhanaya ballanqaadyo ay u sameynayaan xildhibaanadu guriga ay ku garaacayaan si sharaf leh qaarkood ay u weydiisanayaan codadka laakiin waxa siyaada noqotay ururka xukuumadda ururkii ka ururkii uu gudoomiyaha u ahaa Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland magaaladii Boosaaso ahayd shacabkii $10 buu codka ku gurgurnay $10 buu ku gurgurnay $10 qaado noo code meelaha qaarkood wuxuu ka sameeyay jujub wuxuu ka sameeyaa faragelin wuxuu ka sameeyaa hanjabaadada u badan waxay ku dhacayaan dadka danyarta ah oo barakacayaasha oo ku nool kaamamka magaalada Boosaaso dad baa waxay boodayaan anuu inaan propaganda aan sameynayo maxay ahay aflagaado iyo waxyaale aan jirin inaan sameynayo dad baa moodaya war horta barakacayaasha soo weydiiyo oo waraysta idinku Boosaaso waa la wada joogay kool baa ku soo wici ka dhacay bal weydiiyo ururka dawladda waxa la rabay dadku inay dadku ururkay rabaan inay u codeeyaan oo xorriyad la siiyo maadaama dimuqraadiyad la yiri dadkiina u sheegtid waxa kaga gadan ku qarcin ka codkaas waa dhaxdid codkaaga ma waad codkaaga si haddaan u qalmo waxaan ku sameynayaa ka laakiin haddaad codka siin ururka xukuumadda ka wiilal yar u shaqeynaya oo qaarkood agaasimo ay ka yihiin xukuumadda Dani qaarkood ay la taliyaal ka yihiin qaarkood meelo yar ay ka shaqeeyaan baasha magaalada u wareegaya oo waxay ka sameynayaan shoo bare waa ognahay dadka kale magaalada degan oo dadka deegaanka markaan leeyahay waa fahmaysaan dadka deegaanka degan oo qabiilada ka dhashay waa fahmaysaan laguma degdego laakiin waxa inta badan lagu degdegayaa oo buuq iyo shoo bara lagu kicinaya waa dadka barakacayaasha dadka degan kaabanka barakacayaasha magaalada Boosaaso waxa la leeyahay hadaydan codka ka siin waxa idinka saareen meelaha aad degantiin baa idinka saareen hadaydan codka ka siin raashinka waxa idinka jarayna xalan soo qoray xog xaqiiqo ah oo Facebook waxaan ku soo qoray blogiga ku soo qoray laakiin dadka kumeesha ku jira qolkiiba 9 koontiyada waa akhriyay dabcan anigu guuraayo marka waxaan rabay si sharaf leh ururada qaarkood dadku waxay leeyihiin codkan si waxaan ku siinaynaa adeeg waxaan ku siinaynaa wadooyin waxaan ku sameynaynaa xildhibaanada qaarkood oo leeyahay laakiin urur siyaasadeedka ka farba ku jira dadka waxay doonaan bay ku caburinayaan oo u sheegayaan awood ba adeegsanayaan waxaan arkay dhalinyaro aad xukuumadda uga shaqeyso oo aniga soo waca oo meelaha inta aan isku aragno oo inta waxay doonaan sheegayo oo awood adeegsanayo 25 bisha hadii alla idmo waa bari ma waad codkaaga ururka u qalma ururka istiraad intaada ka dhaxartay ururka aad taageersan tahay anigu farta ururka ugu muday maayo dhimaayo urur hebel siiya laakiin hadaa yaqaan ururka codkaaga siinayso oo masiirka Puntland ku aaminayso hadaa joogto Gardafo hadaa joogto Bari hadaa joogto Karkaar hadaa Sanaag joogto hadaa Highland Mudug Nugaal meel kasta joog ururka codkaas inka dhaa laakiin ururada cagajugleynta sameynaya oo waliba dhalinyartu ka soo horeysa dhalinyarta madaxda inta badan lama arko ayagu shaqooyin kale ku mashquulsan yihiin dhalinyara ka soo horeysa rag iyo dumar isugu jira marka waxa la muuqaalka sheergareeya taageerayaasha urur siyaasadeedka kaana waxaan leedahay war caburinta iyo cagajugleynta barakacayaasha ku sameynaysan ka daaya iyo bariis ka dhacay oo ay u qiiminaysan dadka barakacayaasha ah oo aad soo urureysaan waraadada ku soo raraysaan marka insha Allah iyo dhalinyarta xukuumadda ka tirsan waliba askarta waxaan halkan ka xusayaa ninka la dhaco Cabdirabbi oo BMBF agaasimaha ka ah baa magaalada wuxuu ku soo daayay askartii BMBF uu ku soo daayay oo waxay tagayaan iyagoo qoryo wata barakacayaashii dadka qoryo ku qabanayaan jujub ay ku sameynayaan waxay leeyihiin waxa u codeysan ka war dadku ka ma garanay leeyahay dadku mid kale arrin baa rabaa inay idin soo ilmaariya muuqaalka share garay warna share garay muuqaalkaas mid kale
dhalinyarta uu soo dhisay Cabdirabbi war fariinta haligaasi Cabdirabbi war waxa muddo in uu sameeynayo wanaag u sameynayaan ciidanka uu soo diray oo ururka dhahaya dhalinyarta dhahaya dani ururkiisa u qodeen dadkaas waxa laga dhadhacsay dani u qodeen war codku waa khasaaraya war dani u qodeen hadhiin war alista ururka magaciisa xifidsi waxa la yiri seejada markii la tago qofka aan waxba akhrin haduu dhaho waxaan u qodeynayaa matalan ka soo qaad dani war dani meesha kuma qorna maalay or bax codku waa khasaaraya matalan qofka haduu intuu seejada tago dhaho asad baan u qodeynaya waa la tuuraya asad lama yaqaan asad meesha kuma qorna ama jibiyaan u qodeynaya adeer ururka hadaa weeranayso ururka xafidsi daniha xafidsin asad xafidsin jibiyaha xafidsin mustaqbalka ugu sareeya raga ugu sareeya xafidsin ururka bar waxaan tagay mid kamid ah barakacyaasha degmada Boosaaso markaas hawar salqaab ay tii markaas waxay tiri maamo anigu codkayga inaan qodeeyaan raba waligay ma qodeyn codkayga inaan ku doortaan raba nin wax noo qabanaya dhalinyarada noo timiyo dani u codeeyay markaas aan qornaa dani looma qodeynayo maam waa ku qaldan kuwaas ururadu waa magacyada leeyihiin kaaba kamid ah mideey sinaan iyo cadaalad mustaqbal shaqaala saasaan ugu sharax maam ururkan raba see ugu qodeyn karaa beetay waxaan ku astaan bay leeyihiin ururkada saa u xifto warqada u qaybinaa marka dadka isleh dani od u raadiye iyo ururka ka dibindaabiyeeba ugu filan ururka dani u codeeyay leeyihiin cidiina warqadaha akhrisana helayaan soo waxay war naga jooji wacitaanka dadkiina way tahay fiicanta insha Allah dadkiina shuruudaha qodi akhrisay ama tababarka ku qoran shalay waxaan ka qayb galay tababar lagu tababarayo shaqaalaha dadka codadka tirin doorada u tirin doona waxa la yiri qofka haduu soo istaago hebel baan u qodeynaya bartaas automatic looga diraya hatta asxaan looma falaya la dhahayo war hebel yaa ka wada ururkee ka wada ma ka mideey ma yaa ka wada mid sinaan iyo cadaalad marka meesha laga tuuraya marka dadka dhahaya dani u qodey waxaan leeyahay lugooya ururkiina ugu simantihiin codkana saas ay isaga khasaarinaysan si sharaf leh u ololeeyo oo dadka codka ugu sharaxa aga jugleynta iyo propagandada iyo hanjabaadahana dadka ka daaya khayr Allah idin codku waxa dimuqraadiyadda waxa lagu talagalay qofku inuu codkiisa si xaq ah xalaal ugu doorto ururku ka arko dantiis ururku taageersan yahay qasab iyo jujum ma aad baa idin salaamayaa muuqaalkaas halay sheegay hal daaqadaha looga tuuro dadka wax jujubaya daaqadaha looga tuuro gaar ahaan dadka taageerayaasha ururka ka oo ururka xukuumadda luuqa ugu wada diro halkan uga wada yeera waxa tiraadaan dhageysta saaxiibkeen fantastic iyo qarnamid aad baa idin salaamayaa insha Allah waxaan ka baryayaa bari subax inuu nabad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad ilaahay ugu gaarsiiyo dadku anigu waxaan joogay doorashada qardood dadku xamaasad bay hayeen tay soo lugayaan bay waxay imaan jireen meesha ururka u soo baxa ku leeyahay meesha doorashada ka dhacayso hadda meeshan dadkii ma soo baxayaan waa ka cagajeedaan dadkii xiisayn maayn because waaba laga niyay jabiyay admaan waxaan arkay urur soo banaan baxay meeshii baan tagnay ururka laga soo banaan baxay waxaan tagnay urur waxaan tagay meel barakacyaal kamid ah waliba dhibaato ugu badan barakacyaasha waxaan ku oolnay dhibaato ayaga dusha saaran marka xalay war ururka dani ka dhibaatada ka daayan dadka barakacyaasha awood u sheeganaya markaas waxa ma soo barakici karno ma soo bixi karno waxaan ka cabsanaynaa saa war codkaaga adaa iskale muwaadin baa tahay xaq baa u leedahay aad meesha umar halka caadi umar u soo banaan bax ururka taageersan tahay maanta u dhameysay ururka ka dadkii waxa waajibay saldhigyo ku dubur tacaddi u geystay haddana dadka cod bay weydiisanayaan waraad baa idin salaamaya muuqaalka aad halay ugu sheer garay subax wanaagsan